gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Professor Axmed Maxamuud Geela Dacar ayaa saaka kormeerkiisa ku soo maray 7 aroornimo xarumaha laamaha dawladda ee kala duwan iyo wasaaradaha waxaana socdaalkiisa saaka ku weelinayay taliyaha qaybta biliiska gobolka Sanaag Cornel Xasan Maxamuud Gacmayare iyo gudoomiye xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Saalax Abdi waxaana ay saaka booqdeen xarumaha wasaaradaha kala duwan iyagoo ugu horreynba socdaalkooda ka bilaabay xarunta wasaaradda horumarinta reer miyiga deegaanka iyo daaqa waxaana ay sidoo kale booqdeen xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waxaana ay sidoo kale cagta mariyeen dhammaanba wasaaradaha kala duwan waxaana intaa kadib waqtigan ballaaran uu gaarwadeenka ka yahay gudoonka cusub ee gobolka Sanaag Professor Axmed Maxamuud Geela Dacar ay sidoo kale booqdeen maxkamadda magaalada Ceerigaabo oo halkaasi uu ku qaabilay gudoonka rafcaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee maxkamadaasi waxaana sidoo kale gudoonka cusub ee gobolka Sanaag uu saaka booqday isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo isagoo sidoo kalena warbixin ka dhageystay shaqaalaha kala duwan ee isbitaalkaasi waxaana gabagabadii gudoonka cusub ee gobolka Sanaag kormeerkiisan kadiska ee lama filaanka oo markii ugu horeysay ku qaaday xarumaha laamaha dawladda oo ku soo afmeeray banka magaalada Ceerigaabo isagoo maamulaha bankaasna warbixin dheer ka dhageystay waxaana intaa kadib gudoonka cusub ee gobolka Sanaag Professor Axmed Maxamuud Geela Dacar uu sidoo kale ka warbixiyay ujeedada kormeerkiisa saaka waxaan soo mareynay kormeer aan ku mareynay dhammaan wasaaradaha gobolka ka shaqeeya hadii ay kala duwan ku adeega bulshada iyo ku adeega guud waa aroortii hore aan bilownay ujeedada kormeerkaasi wuxuu ahaa bal inaynu hubino sida shaqooyinka wasaaradu socdaan sida shaqaaluhu soo xaadiraan iyo sida loo qabto adeega qaranka intii hore aan joognay magaalada waxaan ku jirnay hawlaha xafiiska iyo hawlihii kale ee bulshada ee ahaa hadii cuqaal tahay iyo hadii mushkiladaha xafiiska yaalay tahay ee dadku isku haysteen tiibaan hadda xafiis u sameynay waxaan u soo leexanay inaan kormeerka ku barro dhammaan wixii cabashaha waan ka qaadnay wixii shaqadooda waan aragnay waxaan kulliiba ku bogaadinayaa dadka reer Sanaag ama shaqaalaha wasaaradaha u shaqeeya mas'uuliyiinta inay dhowraan saacadaha shaqada inay ka soo xaadiraan saacadaha shaqadu tahay waxa loo shaqeynaya waa dad gobolkan uu ka fog yahay caasimadda waa ka duwan yahay waa ka duruuf badan yahay waa ka ballaaray waxaan kula talinayaa in saacadaha shaqada dhowraan sidoo kasta waxaan ku waajib ku siinay in boogii registerka ahaa soo dhigo cidii shaqadeeda gudan weydana talaabo laga qaadi oo sharcigeeda la marin cidii shaqaysatay abaalmarinteeda iyo amaanteeda leedahay waxaynu wada shaqaynaynaa bulshada waxaynu u wada soconaa in loo shaqeeyo waa adeega bulshada ee dadka waajib ay naga saaran mishaar baynu ku qaadanaa waa kaynu u dhalanay in dhammaan mas'uuliyiinta iyo shaqaaluhu ay xil iska saaraan ma ku dardaaraya hadii aan ay mas'uulkii gobolka kormeerkan ballaaran uu saaka sameeyay gudoonka cusub ee gobolka Sanaag Professor Axmed Maxamuud Geela Dacar ayaa qayb ka ah waxqabadka ballaaran ee gudoonkan cusub tan iyo intii xilka loo magacaabay waxaana uu dardar gelinayaa shaqada uu gudoonka cusub ee gobolka Sanaag uu ka wado guud ahaanba gobolka Sanaag Abdi Naasir Khalid Saciid telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Ceerigaabo.